السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سعودة صاحب الوشة كوب بن رشيد يمركل فيديو عصب سمعين أفلام تواوين مع عالبي جاهي ما هو يرى waxaad aragtay film kastaba filmka uu ka visual farbadan yahay inuu ka qaalisan yahay sidoo kale markaad aragtana dareemi kartid inuu ka hol badan yahay haday noqoto dadka ka shaqeynaya iyo goobta lagu duubayo iyo agabka la isticmaalayaba imka tusaalahan haddii aan tilmaano filmaanta fantasy-ga ee la sameeyo shirkadaha ugu caansan waxaa kamid ah Marvel filmkii ugu dambeeyay ee Spider-Man No Way Home waxaa ku jiray in ka badan 400 oo visual effects can you imagine waxaa ka qayb qaatay in ka badan 12 company oo company kasta ka shaqeynaya intaasoo kun oo qof oo visual effect artist ah sidoo kale filmkii hadana ka dambeeyay imka soo baxay ee Doctor Strange in the Multiverse of Madness kaasig laftarkiisu waxaa la radaa 95% wuxuu ahaa visual effects filmka hadda dabato adiga laftarkaagu yani wad yaabisa waxaan oran karnaa waxa weeyaan masterpiece buu ku yahay visual effects iyo waxyaabaha filmka gabigiisu waa sababta ay noqoto in creditsku markuu filmku dhawaado visual effects iyo dadka ka shaqeynaya crewga filmka ka shaqeynaya ay saa u farbataan eemantkii duu socdo talaabooyin farbadan buu markaa maraa filmka marka la sameynayo waxaana ugu muhiimsan saddexda stage ee kala ah pre-production iyo post-production pre-production ka hadii ka horeyna waxa weeyaan waa halka lagu sii eego filmka noocu noqonayo haddii ay noqoto sidoo filmku u eekaanayo iyo qorsheyntiisaba production-kuna waxa weeyaan barta hawsha filmka lagu gudan galo qaar kamid ah filmka dadka maamulayana la soo hire gareeyo sida script supervisor-ka iyo dadka ugu muhiimsan ee kalaba waa stage-ka lagu soo hire gareeyo hawsha lagu galo weeyaan post-production-kuna waxa weeyaan waa halka laga gudan galo ama bas laga bilaabo hawsha filmka marka ay duubistiisu dhamaato halkaas oo wax lagu edit gareeyo video filmkii lagu edit gareynayo sidoo kale sound designing iyo waxyaabahaasna lagu sameeyo iyo visual effects-ki post production ka marka waxa jira stage-kan waxyaabo lagu qabto fara badan waxaana kamid ah laba shay oo maanta video-gan muhiim inoogu ah oo ah sound mixing iyo sound designing ka hadaan ku horeyna sound design ka waxay sound design waxa weeyaan imika hadii aad soo fadhiisato imika cafeteria ama bas hadda fadhiisato qol meesha doonto ama meesha doonto ha noqoto oo arintaas ku qabato maxaa dareemaysaa waxa aad dareemaysaa codadkii kugu agdhawaayo dhan ayaad si fiican aad u wada maqlaysaa codadka waxa loo yaqaan ambience marka taas ayaa la yiraahdaa sound design marka post production ka dib la joogo ambience-ka aadan helin sameynta la sameeyo ama process-kaas ayaa la yiraahdaa the art of foley qofka waxa sameeynaya waxa la yiraahdaa foley artist marka waxa weeyaan qofka waxyaabaha codadka iyo waxyaabaha talaabooyinka steps-ka waxyaabaha qofka sameynaya yani isagoo video-gi daawanaya filmki daawanaya hadda halkan ka codeynaya ayaa la yiraahdaa foley artist marka taas waa taas sidoo kale waxa jira wax loo yaqaan sound mixing kun waxa weeyaan marka post production kala joogo codadka isdhexgelidooda iyo codka la sareysiinayo ee laga dhigay loud iyo kala hoos loo dhigayo waxyaabaha isdhexgelintooda ayaa la yiraahdaa sound mixing marka taas labada inaad kala fahantaan waa muhiim maalin anigoo Instagram-ta ku jira ayaa waxa ka soo baxday reel video ay ka soo baxay nin artist ama foley artist oo codeynaya sin kamid ah filmkan kadib aniguna waxaan isku dayay inaan Chinese-kayga balan eego sida aan u codeyn karo oo aan isku dayo inaan codeeyo anigoo markaa isticmaalaya wixii iga garab dhow ee garab yaala oo aan internet-kana sound design-ka waxbaan kala soo digaynin ayaan isku dayay inaan codeeyo so horta filmkan aan codeynay haddaan warbixin ka siiyo cidaan garanaynin waxaa la yiraahdaa Transformers Dark of the Moon waa qaybtii saddexaad ee Transformers-ka silsiladii series-kii Transformers-ka ahaa qaybtii saddexaad weeyaan uu soo saaray director-ka loo yaqaan Michael Bay oo ay matalayeen actors-ka la kala yiraahdo Shia LaBeouf iyo Royce Huntington Wesley haddaba saaxiibay horta intaan u gudagelin sidaan u codeeyay waxaan ka rabaa inaad comment-iga igula wadaagto in ay macquul tahay inaan codeyn karo iyo inaan codeyn karin haddaad aaminsan tahay in waxaan yahay wax production fara badan u baahanayo la codeyn karin igula wadaag ra'yigaaga haddii aad u malaynayso inaan codeyn karayo oo aaminsan tahay la codeyn karina sidoo kale comment-iga igula wadaag aynu gudagalna markaa waayahay horta haddii aan ka horeyno ideyooyinka aan raacay markaan sameynay waxa kamid ah waxaan eegay markii hore horta filmkan aan eegay filmkan waxa weeyaan scene kasta badanka oo markay baabuurtu isbedbedelayaan ama base ay noqonayaan robots iyo waxyaabaha codka ugu badan ee meesha laga maqla waxa weeyaan metal cod bira weeyaan marka maadaama anaguna aan doonay inaan birtii waxyaabahaas oo kale codkeeda sameeyo daway waxay noqonaysaa inaan
birihii aniga iga garab dhawaa ama bas ii garab yaalay guriga dhexdiisa yaalay inaan markaa soo gargaraaco inta markaan sameeyay waxaan tagay post productionkii videogii baan kusoo aan soo dhex dhigay kadibna waxaan sameeyay inaan daawado videogii originalka ahaa oo dabeetana si dhiibli u dhageysto codadka iyo maad aragtay cod kasta markuu dhaco actionka uu sameeyo characterka markaa meesha ku dhex jiraan inaan si fiican u daawado oo yani de labada dhigood baan ka maqlo waana muhiim inaad laba earphone gashan tahay ama headphones-kaagu ay labada dhinacba ay kugu jiraan si aad u maqasho wixii xaggan ka dhacay wixii xaggan ka dhacay iyo wixii halkaaga hore ka dhacay waxyaabaha daba videogan markii aan kan analyze gariyay haddana iga soo baxay waxa weeyaan ugu horeyn horta inuu gaarigan yahay gaari weyn sidoo kale shanqadha koobaad oo sameynay ay tahay naqas noocaas inuu ka soo baxo baabuurta waaweyn baa naqaskaas oo kala soo saara marka koobaad horta waxay noqotay inaan naqaska aan sameeyo sidoo kale iyadana waxaan u fiirsaday markuu gaarigu transformation ka sameeyo furfurayo in uu sameynayo shanqadh daba socoto karkar shanqadh isku daba socoto continuous oo waaweyn inuu sameynayo taana waan dareemay baleedka birta aan markaa isagana saasoo kale soo garaacay si aan codkaasoo kale u mimik garayo amaba aan u sameeyo waxa taas iyadana igu xigtay marka uu inta hore uu ka jarayo dhulka shanqadh weyn buu sameynayaa sidoo kale waxa jira cod dhiiba oo uu sameynayo characterkeena saaxiibkeen oo markaa aan fahmi waayay de guraxan waxyaabahaas oo dhan baa la dhahdaa waqti markuu hoos markuu codkiisa dadinta dhuuntiisa ka shanqarsiinayo marka codkaasoo kale waxa isku dayay markaa inaan anigu sameeyo haddaba codkii baan soo dhex qaadanaa waxaan dhex keenanaa softwarekan wax ku dhiggaranay haddaba markaa codkaasi aynu uga dhigno mid dhiiba iyo robotiga sidin waxaasoo dhan uga dhigno effects baan u baahannahay in aynu markaa ku apply karano effectiyadana markaa waa kuwan effectiga koobaad markaa ku darana waxa wax loo yaqaano pitch shifter markaa waxaad tegi doontaa marka koobaad effectigaaga waxaad ku qori doontaa pitch shifter kadib waxaad kasii tegi doontaa effect controlska edit baad odhan doontaa edit markaad tiraahdo kadib semitoniska ayaad hoos u dhigi doontaa ilaa iyo -5 waxaana dalici doontaa senska ilaa iyo 40 baad gaadhsiin doontaa iminka haddaad codka dhegeysid wuxuu noqonayaa mid dhiiba effectiga labaad si aynu uga dhigno robotic waxaynu isticmaali doonaa effect kale oo loo yiraahdo analog delay effectiga markaad tagto effect panelka waxaad ku qori doontaa analog delay kadibna waxaad soo dul dhigi doontaa codkaaga marka dhex dhigto effect controlska tagi doontaa edit baad dibadna tagi doontaa kadib trash partka ayaad hoos u dhigi doontaa ilaa iyo 80 baad gaadhsiin doontaa delaygana waad yarayn doontaa sidoo kale presetiskana waxaad ka dooran doontaa robotic waxaad ku xigsiisan doontaa effectiga saddexaad oo loo yaqaano flanger kadibna waxaad dooran doontaa presetiska ku jira waxaad ka dooran doontaa robotic and voila sidaas ayaad markaa kaga dhigaysaa codkii inuu noqdo deep sidoo kale robotic marka ay la dhigayso waxaasoo dhan anigoo sameeyey ayaan haddana ka maarmi waayey in yaroo cheata inaan sameeyo oo ah in aan soo qaato signature-koodii ay filimkan uu iska lahaa marka ay titleka uu filimku soo geliyo isbedbedelka filimkuna qoraalku isku bedbedelayo markaa cod yar oo yani digital oo kale aad moodo ayuu sameynayaa marka kaana waan la soo degay waan ku daray sidana wuu noqday markaa laakiin waxaan aaminsan weli inuu shay muhiim ka dhiman yahay cod kale waxa weeyaan favorite line-kayga aan ugu jecelahay Megatron marka uu hadlayo in uu yiraahdo taasina waxa weeyaan Starscream marka iyadana ay duubno Starscream isagana waxaynu ku apply garin doonaa robotic iyo effectiyada hore ee soo maray saddexdii stabood aynu ku apply garin doonaa sidoo kale waxaynu ku dari doonaa in yaroo dabayla oo sheegaysa meesha desert amaba sahara iyo waxyaabaha tahay sidaas marka ayuu kaaga eegyahay videogii aad codeynaysid marka ila daawo originalkii kadibna keen ila daawo sidaas ayaad markaa ku codeyn kartaa qayb kamida filimaanta caalamiga waan ogahay inuu sheegan waa leeyahay waxa laga yaabaa inaan islahay marka lama codeyn karayo laakiin waan ku kaansa adig laftarkaagu eeg wixii aynu imika sameynay waxa weeyaan wax aynu gacanteena ku gargaraacanay laakiin haddii internetka u geli lahayn amaba aynu kusoo shubin lahayn sound effectiyo kala duwan oo fara badan waxaan aaminsanahay bartuu yahay iyo barka sarreysaba inaynu dhigi lahayn marka hawshu saamaadka eesaas ay u fudud intaan ogaa kale markaa saaxiibaya videogeenu aad iyo aad baad u mahadsantahay haddaad intaas oo dhan soo socotay oo nala soo daawanisay legend baa tahay waxaan rajaynayaa videogeena wax fara badan ka faa'iideen sidoo kale uu idin cajabiyey aad baad u mahadsantahay waxaan kaa rajaynayaa videogeena hadduu ka cajabiyey inaad like saarto oo aad like na siiso sidoo kale aad subscribe saarto si aanay videogan iyo videoga kale oo soo socda kuwan lamida iyo qaar ka khatarsan soo socdaaba aanay ku dhaafin sidoo kale aad igula wadaagto commentiga bal sidaad u aragto codeynta aynu codeynay iyo inay wax ka dhiman yihiin iyo inaad si ka qurux badan odhan lahayd waxyaabahaas oo dhan ra'yigaaga igula wadaag barta commentiga ma isku dayday welina wax codeyso iyo in kale intaan ku kulmi doono markaa videoga ku xiga waa
copy rashidayna leh bye bye